السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin halkan waa shirkadda dhismaha Dalsor Construction. Waxaan doonayaa hadii lahayd meesha Allah inaan la wadaagno labada guri cabir ahaan waxay ku fadhiyaan 24 mitir oo xagga damba saaw yihiin dhererka iyo 18 mitir oo wajhada ah koonaha ilaa koonaan. Kadibna waxaan u qaybinay laba guri waxay kala qaybsan yihiin halka liidka reecad leh ayay kala qaybsan yihiin marka intana waa hal guri intaasina hal guri weeyay waana isku mid ah wasim. Insha Allah mid kamid ayaan gali doonaa waxaan la eegi doontaan qaabka aan u sameynay iyo waxay ka kooban yihiin iyo run ahaantii qaabka farshaxan kale ee shirkaddu ay uga shaqeysay dhismaan guud ahaan horta muuqaalkiisa dibadda waad aragtaa haday tahay rinjiga haday tahay nadaafadda iyo farta quruxda badan ee lagu sameeyay hadda la masha Allah albaabada quruxda badan leh ee taarkii electric aha marka kan gudaha inuu gali doonaa hadda la marka kan hadii aad aragto ka kalena waad aragtay macnaheedu weeyaan runtii albaabku waa sliding oo xaggaas u cararaya hadii la doono wax lagu xiri karo remote oo halkan aad joogad ka furi kartaaba imika waxaan gali doonaa guriga gudihiisa hadii lahayd masha Allah marka saaw soo gashaba waka guriga gudihiisu ama parkingkiisu weeyay runtii waa parking weyn oo waasaca oo aad dareemi karto in gaari si fiican nooc kasta la dhigan karo waliba barxad weyn ay kaaga soo haraysa marka gaariga dhigato hadii lahayd masha Allah taala way marka hadaan idin faahfaahiyo waxa kale oo ka dhisan halkan waa suuli runtii waasaca oo aan ugu talagalay in suulina loo isticmaalo sidoo kalena loo isticmaalo magaranaysaa laundryga ama magaranaysaa dhar qasaalka loo isticmaalo sidoo kale dharka waxa lagu meeran karaa banaanka hadii la isra ku meedho halkaas aan ugu talagalay galay trabier ama meel yar oo magaranaysaa biyaha kullaacada halkaas lagu shubayaa dadna toos waxay tagayaan qasaalada jeeda biyaheeda halkan baa lagu shubayaa kadibna toos waxay u tagayaan bullaacad way kana waa qol hurdo isaguna wuxuu ka dhisan yahay parkingka waa qolka hurdo waa qolkii washmaanka ama hadba martida cidii aad baantay halkan wuxuu ku leeyahay gurigu barxad buu ku leeyahay ama magarasa berende fiican buu ku leeyahay runtii la iska fadhiisan karo lagu shaahi karo halkanna waa luuq yar qolkana daaqada uu ka qaadanaya hawada way furan tahay kijadiina waa tan marka kijaweyna waa saca xilligii la doono ayaa kitchen cabinet-ka lagu xiran karaa anagu miiskan temporary ga baan u sameynay marka macmiilka ayaa hadhow ku xiran doona hadii lahayd masha Allah waxaan gali doonaa guriga ayaan gali doonaa guriga gudihiisa waa kan masha Allah marka waa guriga runtii waasaca ah ee aad ka quruxda badan leh marka soo gashid waxaad arki doontaa daarad weyn oo waasaca sidoo kale hadaynu siraadno leerarka wuxuu leeyahay decorationadii iyo leerarkii wuxuu dhan leeyahay aad u quruxday masha Allah waka iftiinka yar fiican baa ku xiran leerarkaas ku xiran albaabada iyo kalarka gidaarka way ismaaj gareynayaan haday kan aad gasho waa qolkii hurdada runtii waxaan jeedaa waa qolkii fadhiga ahaa waka masha Allah wakan waa qolkii fadhiga aad buu quruxday isaguna masha Allah waka fadhigu daaqada weyn waa saacad buu leeyahay beranda ku jeedo iyo parkingka hadii aad ka soo baxo oo sida kale si guud u sharaxo qolalka kan maadaama yahay fadhiga iyo cuntadii kana waxa weeye waa qol kan kalena waxa weeye waa qol kana waa qol isaguna kaas waa qolkii hurdada kana waxa weeye suuligii public ahaa masha Allah suuliga weyn waa sax weeye aad u weyn hadaynu galno qolka hurdada waaw masha Allah waa kan qolka weyn isaguna waa sax suuligiisina waa masha Allah suuliga aad ka weyn runtii aad buu qurux badan yahay masha Allah marka burguna waa masha Allah haddaba cid kastoo danaynaysa magaranaysaa dhismo dhisato qurux badan sidoo kale ama ka gedsan waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan